السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijkeena xoga caafimaad waxaan barnaamijka maanta uga hadli doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo ah waxa la yiraahdo dhibaatooyinka uurka ama uurka markay gabadhu yeelato waxyaabaha ay kala kulmi karto si aad ugu mid noqoto saaxiibada hela mar walba barnaamijyadeena caafimaad fadlan booqo YouTube channelkeena xoga caafimaad subscribe noo saar waad mahadsantahay waxyaabahaas uurka lagala kulmo badana waa waxyaabo la yiraahdo physiologic ama iska caadi wax dhib lamahan qofka haddii gabadhii dhasho oo uurkaas dhigto way ka raystaa badan waxaan sidoo kale fursadan uga faa'iideysanayaa oo gabdhaha markii uurka leeyahay kula talinaa badan inaysan qaadan daawooyinka caadiga ah oo dhakhtarku aanu soo qorin haddii dhakhtarkeedu uu soo qorin ay la xiriiri jirtay waa inay yeelataa gabadh markii uur leedahay dhakhtar ay la xiriirtay isla ku xirantaa si ilmaheeda loola socdo iyada xaaladeeda sidoo kale waa inaysan qaadan daawooyinkan daawo dheeraadka leeyahay waxba noocaas iyadana fursadan uga faa'iideysanayaa intaa kadib barnaamijka ayaan galayaa runtii waxyaabaha ugu horeeyo oo gabadhu markii uur qaado isbuucyada koowaad ama bilaha koowaad isku arki karto waxa kamid ah waxa la yiraahdo walac afka Soomaaliga ama caafimaadka lagu yiraahdo morning sickness gabadhu waxay yeelanaysaa labo matag bay yeelanaysaa marka qaarkood waxay xaaladaas isu bedeli kartaa xaalad la yiraahdo hyperemesis gravidarum oo gabadhu inay matag badan yeelato oo kadibna isbitaal la siixiyaba laakiin sida caadiga ah xaaladaas waa iska xaalad common badana intaas ayna gabadhu badana walac oo calaamadihiisu adiga inay wax qabaha qaarkood baahato kale inay isticmaasho waxyaabaha dhanaan in laba yeelato waxba noocaas ayaa calaamad ugu horeeyo ah isku arki karto gabadh markii uur yeelato waxa kale oo xiga oo waxa labaad soo labeeya ah qodobkaas dhabar xanuunka badana haddii gabadhu uurkeeda bilaha koowaad isku arki kartaa haddii waxyaabaha qaarkood cudurrada qaarkood infection ay wax jiraan sidoo kale markuu cunugu cuslaado oo bilaha dambana way isku arki kartaa xaaladaas way aad isku arki kartaa waxaa sidoo kale soo sadeexay wax la yiraahdo hurdada gabadha oo xumaata sidoo kale daal fara badan in isku aragto maadaama hormoonada jirka ay isbedeleen sidoo kalena ay shaqadii isbedesho oo wax qof cusub Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala ku dul abuurayo sidoo kale waxaa badana ku dhaca gabdhaha markii xilliga dambe uurka leeyihiin waxa la yiraahdo varicose veins in xididada ay bararaan lugaha kale waana xaalad iska caadi ah waxay ka imaanaysaa cadaadiska saaran ilmaha ay ku hayaan qaybta hoose ee xididada qaybta caloosha ayaa waxay keenayaan in dhiigii soo laabashada lugaha ka soo laabanaya oo xogaa yar hoos u dhac ku yimaado sidoo kale madax xanuun waa iska caadi oo madax xanuun inuu yimaado hergab oo kale waa iska caadi inuu yimaadana sababtoo hergabka wuxuu ka imaanaa asigana difaaca maamada uurka leh aad u hooseeya waxaana la rabaa markaas camal maamadu aad isu dadaasho sidoo kale maamooyinka uurka leh bilaha dambe wali badan waxa ku dhaca baabasirkana wuxuu la mid yahay asigana varicose veinki ama xididada lugaha bararayo oo la mid yahay oo cadaadiskaas maamada saaran ee ka saaran qaybtan dhexe ayaa waxay keenayaan in xididadii dhiigga hoos ka soo celinayay in ay soo celitaanka dhiiggaas uu yaraado oo dhanka dabada xaggeeda marka taas ay idin culays ka hadii hooyada qudheedu ay leedahay xaalad calool fadhina way ka imaan kartaa sidoo kale waxyaabaha kale aadka loo arko waxa kamid laabjeex ama heartburn wax la yiraahdo oo idin sabab u ah cunuga koritaankiisa iyo xaalado kale haday iska jiraan oo keeni kara sidoo kale naasaha xaggooda danqasho ka dareento tenderness breast ka dareento ayadana waa la arkaa cilid dhiig badan oo ay ka cawdaan ayadana waxa sabab u ah yaraashaha waxa la yiraahdo fitamiinada qaarkood